Girl, you mine, qalbigaad ku taala every time. Girl, you mine, qalbigaad ku taala every time. Tamalkwe, ani waan kayle, qortadee, xagga laan kayle, qamis makadinka. haddii aad channelka ku cusub tahay nagu soo biiro subscribe saaro gambaleelkana furo si ay kugu soo gaaraan muuqaal walba soo geliyo. sidana waxay ku dhacday maamo waayela oo xogaa xanuunsaneed. maalin maalmaha ka mid ah maamadii xanuunsaneed ayaa waxaa la keenay isbitaal. maamada xanuunkeedana waxay ahayd cabsi badan iyo walwal badan ayay qabtay, sababtoo ah ayadoon wax dhibaataysan ayay cabsanaysaa, way walwalaysaa. maantana waxyaabo aan la arki karin ayay sheegaysaa. waxay leedahay waxaasaa xagga taaganaga cabsiinayo, waxna lama arkayo. markii loo begi waayey maamada oo jiradana kusii saa'iday ayaa waxaa la keenay isbitaal. markii isbitaalka la keenay kadib waxaa lagu wareejiyey gabar kalkaalisa si ay xaaladeed ula socoto daawooyin ay u siisa mar walba. gabadhii kalkaalisada ahayd maamada ayaa la yaabtay, sababtoo ah maamada mar walba waxay ahayd qof cabsideeda said ah, koos hal mar xataa maysan faaxi jirin. mar walba ay cabsanaysay, meelaha darbiyada ayay faraha ku taagi jirtay. waxay dhahaysay waxaya xagga taagan oo kale. dadkana waxyaabahaas way ka aamini waayeen, way ka dhidhibsanayeen, sababtoo ah qofka waxay ahayd qof mar walba iska cabsanaya, bis indhaha taagayo si qof la dili rabo oo kale. gabadhii kalkaalisadeed intay maamada la yaabtay ayaa xeel walba daawooyinkeeda intay siisay ayay iskaga dhaqaaji jirtay. habeenada ka mid ah gabadhii kalkaalisada ayaa waxay maqashay qayli ka imaanaysa qolka maamada ku jirtay. gabadhii kalkaalisada intay soo carartay ayay qolkii maamada imaatay. kadib waxay aragtaybo nalkeena shida ayay isku dayday. nalka markay shiday kadib waxay aragtaybo maamadii oo fadhiso sariirta aydan wax dhibaato haysan, balse baqaysa oo gariiraysa, waxaanaysay cabsi aan inaba caadi ahayn. aniga intaan la yaabay ayaan waxaan dhahay maxaa ku dhacay maamo. markaas ayay waxay tiri walaalay soo ma jeedid waxaas xagga taagan aniga aad iga cabsiinayo, fiirib waxaas xagga taagan ay dhibaya, aniga waan ka baqayaa. kadib gabadhii kalkaalisa inta la yaabtay ayaa darbiga farta loogu fiiqay. waxay dhahday waxaas gadaashaada taagan ayaa mar walba iga cabsiyo. gabadhi waxba maysan aaminin, balse sheekada waxay bueg tahaybo wax inuuba jiro gabadhi gadaasheeda taagan yahay oo kale. gabadhii kalkaalisada waxna inaysan aaminin ayay doqdi ka dhaqaajisay, albaabkana ayay kor uga xirtay. qisadani waxay ku dhacday laba gabdhood oo saaxiibo ahaa. labadii gabdhood mid ka mid ah ayaa waxay kasoo tagtay magaaladii ay joogtay, waxayna soo aaday magaaladii ay joogtay gabadhii saaxiibadeeda ahayd. kadib labadooda magaalka ayay ku wada kulmeen. labadii gabdhood saaxiibada ah waxay ahaayeen dad muddo iskugu dambeysay, kadibna waxay go'aansadeen inay waqti isla qaataan ay soo baashaalaan ee magaalada aadaan. labadii gabdhood siday u sheekaysanaya iskula socdeen ayaa labadii gabdhood mid ka mid ah waxay dhahday waxaa jira guri qadiimi ah oo ku yaala magaalada geeskeeda, marka haddaan aadna ka baranba. gabadhii kale haya ayay dhahday. kadib labadii gabdhood mid ka mid ah waxay soo qaaday toosh si haddii habeen loogu gaaro ay meesha ku iftiisadaan. labadii gabdhood siday u sheekaysanaya u soo socdeen ayaa waxaa lagu gaaray habeen. habeenkii markii la gaaray ayaaba ayagana guriga imaadeen. runaantii guriga wuxuu ahaa mid aad u cabsi badan. kadib labada gabdhood ay gudaha usoo galeen gurigii. labada gabdhood mid ka mid ayaa waxay ahayd mid fulaya oo aad u baqaysa. runaantii guriga banaftirkiisa wuxuu ahaa guri aad u cabsi badan. guriga ayay fiirfiirinayeen, ayay wax kale raadinayeen. guriga runaantii waxaa ahaa guri cabsidiisa saaid ay tahay. labadii gabdhood mid ka mid ah waatana guriga ayay ku dhex wareegaysaa. guriga waxaa ku dhignaayeen
sawir cunug yar, sawir maamo oo kale, dad lamaano, sawir aad iyo aad runtii sawirada xataa waxay ahaayeen kuwa cabsi badan. maraan miyaad meel ku taala aan fiirinaya waxaan ka dhex arkay naag wejigeeda. armaajadana waxaa saarneed madax xayawaan oo qalalay iyo dhalooyin aad u maleysid inay ku jiraan dhiig iyo waxyaabahaas. runtii guriga cabsidiisu waa guri aad u cabsi badan. kadib ayaan lama filaan waxaan ku aragnay god iyo ku yaalaan cojo iyo gacmo oo god dadka ku dhex dhici jiraan lagu dhex ridiyo kale. kadib waxaan aragnay lugo oo aad u cabsi badan. intaan shoognay ayuu nalka naga dhacay ayaan wax fiirinayna aan la naxnay. runtii waxaan oo kale weligeen baan arkay intaan ka saarnaa. kadib markaan fiiriyay waxaan arkay sidii wax bahaloo kale oo weeg qof waayeel oo kale oo dhankeen u soo cararay. aniga aad ayaan u baqnay. wixii aqo intuu soo cararay ayuu wuxuu ku dhigay gabadhii saaxiibadeeda ahayd, mid ka mid ah labadii gabdho saaxiibaha ahaa. kadib wuxuu isku dayay inuu godka u jiido, gabadhii kale waxay isku dayday inay badbaadiso, balse laakiin ayadoo isku daysay inay badbaadiso ayaa gabadhii kale wixii bahalka ahaa gacanta ka qaniinay. gabadhii kale xanuun dareedii saaxiibadeeda way sii daysay. sidaas awgeed saaxiibadeeda godka ayay ku dhex dhacday. gabadhii kale intay oosay ay si dhaqsi ah waxay ku wacday booliiska. abaay habeenkii saqdhex ayaa waxaa imaaday booliiskii. arintana meeshaas ayaa ugu dambeysay. Girl, you mine, qalbigaad ku taala every time. Girl, you mine, qalbigaad ku taala every time. Tamalqueen, ani waan kayle, portaladeed, xagga laankeele, qamis makadiinka. haddii aad channelka ku cusub tahay nagu soo biiro subscribe saaro gambaleelkana furo si ay kugu soo gaaraan muuqaal walba soo geliyo. Ina wada